daawadayaal duhurnimadkii maanta madaxweynaha Somaliland ayaa isku shaandhayn ku sameeyay golihiisa wasiirada mas'uuliyiin kala duwan ayuu qaar magacaabay qaarna xilal ka qaaday xubnaha xilka laga qaaday waxa kamid ah wasiirka wasaaradda diinta iyo qaabta Somaliland Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed Sheekh Khaliil xilka qaadista saad u aragtaa si wasaaradda diinta iyo qaabta muddo dheer oo wasiirkeeda ahayd maxaa ku qabsoomay maxaana lagu xasuusan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وهرين وحنا هلكن سلاني بوجادين وقدريا شعب كرير سوماليلاند جارهان وريها لغمان ما ارتكولن كانوا إلي شيء ويصادون طي حقة وحنا لي وهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كديب إله بس سبحانه وتعالى مهضله إلهي سبحانه وتعالى مارتي قرشها إسكاله والدنيا معمولة وحن آديات وهريرت وجمهد علنية مدحونا قرق سوماليلاند مدن مسبح عبدي حلك وإيج مضي عن مدة أفرت سنوات يجوج أسوهي ورنتي أهيد مدة عن ست دو وجو صاحبنا صاحبه هاي مدحونا وربي سوات كد دورتي إنه يقدرين أركينا قبل كره مدة أن لها ينا رنتي وحن أركي إن سف عن أو عدا ضاعد ماء أو وطنية ذا أن ولسه شقية يسوون قدرين سنتاس لكن سنها دولة نمو أيا وحسكية هاي المرة والبا بالتيم لقوا وشقة الله هيو إن هالكسي هجاتيان وقسيهور مريان أنا waxaan kala wareegay sheekhaayga sharafta badnaa Sheekh Maxamuud Suufi oo runtii meel soo gaarsiiyay arrimaha diinta iyo waxqabadkii diinta iyo horumarintii dacwadda runtii halka uu soo gaarsiiyay anigu waan ka sii anbaqaaday way garab taagnaa saaxiibaan u ahayn ku hayn shaqada markastoo tala doonayay waan u yeeri jiray markastoo aan maartay hawl qaran qabanayno waan u yeeri jiray wuxuu ka garabkayga taagan uu kamid ahaa taasoo waxay keentay inaan halkii ka sii hormariyo oo dad markhaati madoon ayay tahay madoon baan ujeeda ayay tahay hawshaan qabtay iyo sidii aan u hormariyey arrimaha diinta oo runtii dad arkaysa anigoo dhalinyaro ah oo garhku aan wada caddayn ayaan hawshaa bilaabay muddo waxaan soo hayay imanka sanad iyo hal bila 10 sanood 12 sanood baan ujeeda 12 sannadood iyo hal bil ayaan soo hayay hawshaas halkii soo gaadhayna Somaliland oo markhaatiya madaxda ka markhaatiya waana sababtoo igu doortay Musabix Cabdi madaxweynaha qaranku markuu isu xilkaay magacaabayay inaan sii wado waxa runtii aan isleeyahay xilli ilaahay qadaray ayuu madaxweynuhuna ilaahay subxaanahu wa ta'aala garansiiyay inuu cid aan rajaynayo inaga firfircoon badan tahay iga dayar tahay dhalinyaraysan tahay iga aqoon badan tahay marka dheego dhinaca shariicada dad doonto oo aan saaxiib lilaahi ahayn oo aan muddo dhalinyaranimadaydii ilaa 3 aan saaxiib soo ahayn ayuu hawshii u igmaday imakana waxaan ballan qaadayaa inaan horta madaxweynaha markasta aan xasuusto oo u mahad celiyo oo u duceeyo inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala u fududeeyo xilka intuu hayo oo walibana ragga uu doortayna ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga dhigo rag khayr badan oo hawsha la fuliya oo hawsha ilaahay isagana uu saaray isla garab taaga oo caawiya inay u noqdaan tiimka maanta uu doortay ayaan rajaynayaa qorshaha hadda weydiiso qorshahaygu waxa weeye kow inaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala caabudo sidaan hore ugu caabudi jiray inaan dadkana walaaleeyo hawshan qaban jiray ee samafalka ahayd iyo hawlihii kale dacwadeed aan waday marka laga yimaado nolosheeda gaarka ah inaan sidii ugu sii jiro aan qabto ayuunba qorsho ah kama fogaan wasaaradii kama fogi waan garab taaganahay shaqaalahan garab taagnaayeen waxaan garab taagnahay haddii la yiraahdo madaxweynaha iyo ciddii uu igmaday imaka hawsha oo ah Sheekh Cabdirasaaq Ali Xuseen Albani lagu magacaabo runtii magacaana kutubtii anigu aan 83 Sacuudi kala imi ama aan ka keenay ayuu aad u akhrisan jiray iga qaadan jiray saasoo magaca Albani kula baxay ilaahay khayr siiyo isagana Allah u fududeeyo madaxweynahana waxaan leeyahay ilaahay garabka ha galo xilka inta ku hadhay iyo intan wada noolahay labadeenba Allah inoo sakhiro inoo fududeeyo hawshan maanta aduu igmatay Sheekh Cabdirasaaqna waan isla garab taagi doonaa intii karaankayga
waan isla garab taagi doonaa dalkan Somaliland waad ka warhaysaa oo adaaba goobjoog ahaa dhaawacaygii oo dhiigaan u shubay garanaya oo runtii igu mahadiyey iguna ixtiraamay adiga rag badan oo kale maartay dadkii qaranka soo halgamay ah way ka warhayaan markaan dhiigaygaan u shubay imikana waxaan u shubay waqtigaygii iyo caqligaygii iyo aqoontaydii iyo maskaxdaydii intaan kari karayay wax ceeba oo maanta cid alla cid soo sheegi karta oo aan u geystay wax qabadka Soomaalida maamahday in meesha joogto amba gabow baa ka kaxeeya amba geeri baa ka kaxaysa marka geerida ilaahay kama dhigin laakiin da inaan ku soo noqday oo soo shaqeeyay ayuunba marxaati ahayd waan u mahadnaqayaa bulshada reer Somaliland ee ixtiraamtay ee la shaqeysay ee aad iyo aad magacayga u dhowrtay iyagana waan u mahadnaqayaa waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala dalkan Soomaaliya ha barakeeyo ha ka dhigo himiladeen rajaynayna wanaagana ilaahay hayna gaarsiiyo dhammaantiinna waan idin mahadnaqayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sheekh diinta ayaad muddo dheer 11 sano wasiirka diinta ahayd sidoo kale xilka wasiirnimo waa xil siyaasi ah xisbiga kulmiye ma ka sii tirsanaanaysaa si siyaasadii dhinaca mid kaga sii jiraysaa xisbiga kulmiyada waa xisbigayagii waa xisbi runtii aan muddo dheer halwadeen u soo ahaa imikana runtii goliisa dhexe kuma jiro laakiin berigii gola dhexe la soo magacaabayay ama la soo dooranayay anigu ana wasiiro iska mandhigin waxaan doonayay inay sal ballaaran uu yeesho xisbigu marka dad kale maadaama xil wasiirnimo aan hayo xilka xisbigana dad kale ayaan u magacaabay oo aan ku taliyay laakiin inta uu hawsha xisbigu hayo iyo mar kastaba waa garab taagana wixii khayr ah ee wanaaga isla garab taagana insha Allah waanaanu ku bogaadinaynaa hawsha ragga haya in ilaahay u sakrana waan ugu ducaynayaa ugu dambeyntii waraysigan aad siinayso xilka qaadistaada iyo arrimo maalmihii ugu dambeeyay la hadal hayay oo habeen dhowna aad ka hadashay jaamacadda Abaarso iyo waxa miyay shaqo ku leedahay ma wax shaqo ma laha waxa Allah shaqay ku leedahay habeeyartay ma jirto baartaankeeda kolleeyda waxaan ku wareejin doonaa uun xafiiska ciidanan ku wareejinayo ma ku wareejin doonaa waana hawl runtii inoo socota reer Somaliland horaan ugu sheego waxaan ku wari wixiina gacmo gel jira hoos baa loo dhaqaa wax kasta oo wanaagsanna waynu ku faanaynaa wixii kasta oo wixii dib noo keenayna waynu ka muxuu ahaayay way ka dadaalaynaa waxaan rajaynayaa dadka reer Somaliland halkay arrintaas la gaadhay kuma habboonayn runtii waxay ku habboonayd in arrimahaas oo kale yani maanta qof kasta oo Somaliland nacab amba ujeedo kale wuxuu soo qaadanayaa Abaarso runtii dhalinyaradii caruurtii laga ka aflaxday ee la diray oo maqlaysan habeenkii dhawaato soo hadlayeen si ay uga sheekeynayeen diintooda uga sheekeynayeen siday diinta Ilaahay u haysteen siday maqnad yihiin dad aqoon-yahan oo hormaray siday yihiin aad iyo aad baa loogu khushuucay runtii deewasa loo saxayana waxa xil saaran in dawladda Somaliland baa xil saaran xilkeedina way wadataa waajibkeeda way gacanta ku haysaa madaxweynuhu ka hadlay anigu ka hadlay anigu maniga sheegay anigu wasiir baan ahayn 2009kii masaajidka ku yaala anaaba dhisay macallimiintii masaaridaheeda shariicada iyo dhigaysay iyo luqada carabiyana anaaba keenay waxa imkan bartaan wax kala boo hayne wixii maamul soo cusboonaaday ayuun baan ahayn bal khadaba taga see loo sheegay ma jiraan mise ma jiraan intaas ba intana lagu jiraa waan mahadsantii san tahay daawadayaal waxaan halkan waraysi kaga qaadanay wasiirka hore diinta qafta Somaliland Khaliil Cabdilaahi Axmed Sheekh Khaliil Luqmaan Maxamed Farax iyo Ridwaan MMTV Hargeysa